qaybtii labaad baan dib ugu kulannay iyo marti jadiida bal aaraadooda iyagana aan eegno. Assalaamu calaykum. Aan ku faraxsanahay inaan maadaragtay madashan soo fadhiisano. Waa Fahima walaashiin waan dhawahay intaadii horan ba soo dhawow. Anagoo maanta ka hadlaynaa wax aniga fiimahan haddii aan xoog ii taabsanaya. Waka hay anigu waa Umal Khayr waan dhawahay waad ku mahadsantahay barnaamijka. walaashay maan baan hadalka uga baxaya. Man Yusuf intaan karay waan dhawahay waana mahadsantahay waa soo dhaweynaa man haddii aan anagu degdegayna waqtigu barnaamijkii ina soo siqayo su'aashaydan aan doonayna ku weydiiyo waxa weeyaan waxa la yiraahdaa dumar badan yaa la yiraahdaa rag iyo dumar way u sameeyeen maxay ahayd problemkaas ama dhibaatadaas laakiin haddana waxaad moodaa inay dumarku asal ahaan uu jeedo hadalkaasi waxa la yiraahdaa dumar badan oo mas'uuliyado loo dhiibay shaqooyinka meelo heerar mas'uuliyad ka jooga yaa la yiraahdaa kumay soo gaarin meesha ay joogto kartideeda aqoonteeda laakiin waxay soo martay dariiqo kale oo qaldan maxaad ku oran lahayd ana mid kale aan ku weydiin iyar fasir dariiqada khaldan ee aad ka hadlaysay صح ما هذا الكاديان وذا قاوينه إن لك وذا قاوي مجعلين إنه هذا الكوذا قاويه يعني قاوينه مرة هذا ظهري من نبأ واحد شيرة والله يرهذا قبل داسي أما شيف كيجا أما بوس كيجا يي حاساوي يوح شيكوين كلا ده مريض مركز سدا سيكوسو قاعد هيركاس كرتي يا أقون إيلاد هاي أو حرفة إيلاد هاي شقدن كميسو قاعد فكرة هذا محك شيرة ولا أنت وحن كشي كرياس كير لكن تانوجهاي maanta waa la isla adiga bay yiri bada waa la siman yahay maxaad adu ka malaysaa raga mijlisada qandaraasada ku qaata iyagoo waxbana qaban oo ku dhex raaxaysanaya mijliskaas oo barjeenaya waa aniga ku sheegay hadana waxaad moodaa su'aashaasi inay dumar ahaan gaar ahaan u haysato de waxaan joognaa wadan iyo adduun ya dumarka markasta farta lagu soo taagayo markasta waxay qabtaan bad iyagu ay khaldan yihiin haddaan maanta tartanka la galno waxaan markaad ogtii wax si yar oo fudeed markuu ninku u helayo wax gabadhii isleedahay sidii u hel waxa dhici karaysa inay de waxa khaladaadka bulshadu ay u arkayso inay xagga soo marto laakiin aniga the ways kula kaydeen maano ninka ag fadhiyay maanta oo dhan u sheekeynayay wasiirka amba chefkiisa amba booskiisa amba wax ka doonayay yade gabadhan yadu la haasawday amba jirkeeda yadu dhiibatay de waxaan u maleeyaa inay yadu dadaashayba hay marka waxa leedahay si ama dariiq ay ku soo goosanaysa cadkeygaba taas leedahay of course okay aslata okay Umal Khayr maxaad ka qabtaa adna aragtida ay maan no horta maan wax badan baan wadaagnaa aragti guud baan wadaagnaa oo feminism ah oo si mid aan u fahansanahay su'aashaadna weydiisana way qaawan tahay runta marka la sheego gabadh haddayna weydiin lahayd malaha haasaabo si kale u dhici lahaa laakiin inay mikadanba tacadina lagu hayaan moodayaaba marka su'aashana la weydiiyo marka run ahaantiina anigoon una yaxanin hablaha gifna ka gelayn waxaanaad soo sheegto waa wax jira laakiin bulshadeenu waxay xilli walba door bidaa inay dhibka wixii u sabab ahaa maaha wixii u sabab ahaa inay ka soo boodo oo wixii uu keeno uun ay ka faallooto maan waxay la sintay mahma waxa lagu yidhaa ama haddaad kun weyday kaartamaad weyday mahmaadu saasa weekeen marka waxay tiri gabadhii si kale waa waxay ahayd dariiq ay u qaadatay horumarkeyga run ahaantii anigu maan hadalkeyga saa kamaan fahmin waxaan ka fahmay ahayd waxay tiri haddii aan qaawiyo hadalka dhilanimadu tay raggu samaynayaan iyo tay habluhu samaynayaan waa isku mid ninka sheefkiisa ugu tegay majlis waa nin dhalaysta
wuxuu lamid yahay un bay tiri gabadha iyadu lugaheyga ama jirkeyga ka ganacsatay inkastoo welibana labada gabadha dembi ma oran kara diin kama sheekeynay laakiin marka xeeran la eego gabadhaaba ka yar sharaf badan waayo iyadu albaabadii oo dhan markay kasoo wada xidhmeen albaabkii keliyaata ee u furnaa bulshada weeyaan laakiin isagoo u furan yihiin albaabadoo dhan ayuu ka doorbiday inuu majlis tago oo uu halkaa dabaleef iyo dufan jecelnimo uu halkaa la tago bulo haddii ay albaabadoo dhan ka xidhmaan gabadhaas uu dariiqa keliyaatay meesha ay joogto heerka ay joogto heer ka sarreysay u gaadh leh dariiqaas hadduu yahay dariiqa keliyaatay ee u furan ma inay gashaa gabadhaas aan ka yar dhexgalo bulo waxaan u malayaa su-aasha aad ku celinaysa waa markii labaad aad doonaysa inaa lagu sii fasiro iyo may waxaan doonayaa dariiqadaas in aad gabadhaas la raacsan tahay ama in aad markaa shaksi ahaan annagaa doonaysaa inaad ogaatid inaan la raacsan nahay okay walaalkay waa sidii dee tiri walaashay maanta nolosha waxaa jira wax dadka ku qasaba maanta markaad leedahay albaabadaasoo dhan markay soo xidhmeen sida keliya iyadiyo dee aan ognahay inay khibrad leedahay inay u soo shaqayso haddana la xaqirayo dee waa waan ku raacsanahay inay dariiqa qaadato that's it nacam dee maanta markaad leedahay qof markuu gaajoonayo hadduu u maro dariiq khaldan oo bulshadu way arkayso waa dariiq khaldan oo marata uu helo cuntadiisii waan ku raacsanahay marka waxaad leedahay gabadhaasi inay dowga qaadato waxa ku qasabtay waxa iyadu shakhsi ahaan maahay waxa ku qasabtay bulshada inteeda kale ku qasabtay baa leedahay oo wax lagu taariikh baa ku qasabtay bulsha ku qasabtay adduun rag ee maamulaan oo ay ka yihiin maxaad maanta mas'uul baa ku qasabtay hay marka xal kale haddii weydo waa inay ku dhaqaadaba leedahay malaha waad ilaawday subxaana wa tacaala nadee xal kale 100 meelood bay xal uga iman karayaan markaas sax raaliya haddii aad su-aasha sii wadid jawaabteeda horta ani su-aashii maba cajabinba runta hadaa kuu sheego waxayna iigu cajabin waxaad ku dul joogsanaysaa haddii ayna xal lahayn ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi calaa niyatikum tursaquun waxaan ka hadlaynaa waa dumar dadaalay waxaan ka hadlaynaa waa dumar wax qabsanaya halkaasoo quraata in lagu soo koobo maaha waa sidii walaalahayba dadkii iga horeeyay ay maadarata carabka ku dhufteen waxaa jira wax la iska wada garanayo promotion majlis la yidhaaho way ka wada hadleen qof kasta promotion majliskaasina dad badan baa ku ceeshay ilaa maanta ku ceesha aqala ku dhistay dumar ka guursaday laakiin promotion majliska amba meesha haddana lagama hadlo badanka dumarku ma hadlo saaraha waxa looga hadal yaa ka hadlay dadkii ka hadlay majliska joogaan ayaa hadlay markaa ayaa hadlay wasi walaashina maanta ay ka hadlaysay fawziya ay ka hadlaysay maanay shay bay cajabiyey waxay tiri anigii oo dhamaystay oo wixii aan qabanayay ay diyaarsan tahay iyo habeenmadii lala kulmay ministerkii wixii laga baahnaa baa laga saxday aroortii baa shaqadii imid ubadkeyga wixii gabaysaga maqantay aroortii waaba sheeko kalaba marka maxaad rabtaa inay dumarku sameeyaan maad ku raacsantiin miyaynan raacsanin maxaaba lagu raaciba waaba meesha dhanba waxaba ka socdaba tacdiyaad dhinac kasta aad ka arkaysid haddana waa laakiin hadda tacdiyaad baa laga hadlayaa laakiin dad badan waxaa jiran tacdiyaadkaasiba ay taabsan laakiin haddana eeg waniga kule dumarku iskuma wada jiraan laakiin waxaa haysata dhibaata jirta oo ay fawziya dhakhtarkii fawziya ay soo hadal qaaday waxaa jira dhibaatooyin ay dumarka ka sameeyeen kuma wada dhacaan dumarka oo dhan laakiin intay ku dhacday waxbay iskaga eegeen sibay iskaga eegeen marka waxaan raadinaynaa barnaamijkan ii waran dhexdiisa xalkiiba la raadinaya maxaa u sababa in minjiliska promotion minjiliska la arki waayo promotionkan kale kanapega ama sida loo la yiraahdo gabadhan maxay heerka sida ku soo gaadhay in gabadhan la arko maxaa u sababa de adi su'aashan kugu celiyo waxa loo arki waayay baan ku faansiinaya si adiguna u faantid rag baa ka hadlay promotion canapé laakiin dumar promotion majlis kama hadlayaan wala iska ogyaayba waxay noqotay sida biyaha macaan ilmuhu markuu dhasho la dhaawayna biyo macaan la siiyo caadi wakaas marka anigu ma lihin way xun tahay oo waxa dhici karta majliska ina arimo lagu gofaynayo amba wax lagaga qabanayo wadanka laga bedelayo inay dhacdo laakiin waxaan leenahay haddii ay dumarku tacdiyaadkan ay la kulmayaan waxa loo baahan yahay anigu saans leh hada waxaan ka hadlayaa meel maxaan oran karaa amba xafiis
xalin karaa oo la soo dhigan karo dhibaatooyinkii gabdhuhu la kulmaan waa resultaashkii fawziya sheegaysa andhameeyo wad fahmiye xafiis dadkii dhibaatada ay ku dhacday ay soo dhigan karaan maxaa dhahaye dhibaatadooda ay ku fasili karaan xafiiskaasay dumaruun joogaan iyaguna oy dumarkaasina ay ka sareeyaan oy ka madax bannaan yihiin waxa dawliga oo dhan markaas sidan anticorruptionkaan leenahay sidan cour de compte aan leenahay de cour la yidhaaha arselmoon la yidhaaho oo dumarka lagala hadli karo meel gooniya oy gabdha fadhiyaan oo dumar la soo xushaado dumarkaas ka soo xulanaya ma haddana ninama soo xulaya gabadha uu rabuunbuu soo xuliyo dee iyaduna cadhadu ay ku yartahay amba dee waxba soo gaarin waxba qasab maaha qofkan meesha jooga qof wax soo gaari maaha 90% dadka dumarka u ololeeya dad wax soo gaareen maaha waa dad dareenkooga iyo damiirkooga ay kiciyeen khasab maaha in lagu soo kufsado saad kufsi uga hadashid khasab maaha inaad promotion canapé aad ka hadashid adigoo canapé soo marin laakiin maaha inaad gabadh noqotid dumar waxa dareenka rag waxaa jira annaga nooga fara dhowdhowban rag waxaa jira annaga nooga maadaragta xirfad dheer laakiin meeshan inaynu ku soo koobin gabadha yare ay dhibaato qabsatay ee ku khasban ninka mas-uul horta dhegeyso muxuu mas-uul ka dhigaya mas-uul كلكم مسؤول يلا يدي قف كست وحي ساو حكمو مسؤول كما سو كوبينو لكن وا شيء جيرتا دي ان كودا ما لكن أركيد يجا لا سارة وكا ميانت كهاد الكرين example بانكو قطعية ميني تشرين قبل مسؤول كا محرر هاي مال في عن ما أنت مرتي مالها وصار يجيبوتي شوكتا لكن الباب سيدي دمر كوي شيءين أم بلافون يجرا اللي دافي كرين وأركيد بلافون بفيها هذه جبا صا دي بصار نقنية حرفة هذه maxaa dhahay aan markaan maqlo gabadhaasi waa fariid wallaahi waa nin way taabataa because gabadha waaba naag ayaa qurux badan nin hadduu ilaahay igu talagalay dee fahmi baa lii bixi lahayo nin buu ilaahay iga dhigi lahaa markaa sheekada anuuna kusii dheeraani waxaan leeyahay tacdiyadahaas ay kataan ku celiyo haddana si in lay fahmi waxaa loo baahan yahay xafiis lagu xaliyo tacdiyada dumarku ay ka cabanayaan xafiiskaayoo ka madax bannaan maxaa dhahaye oona dawli aan ahayn oy xafiiskaasina ay joogaan dumar ay joogaan yaa looga baahan yahay markaa inuu sameeyo dee waxa loo baahan yahay dadkii waddanka xukumayay iyo dumarba hadday tahay anagoo dumaraba anagaa qoran karna kuma khasbana mar kasta ina dushu ay wax ogaato hoostaa wax laga ururin karaa markaa gabadh kastoo tacdiye shaqadeeda ku dareentay iyada oona ooyin iyadoona qaylin waxay helaysaa meel magaceega iyadoona la sheegin oo maad aragtay akhbaarteedu ay asturan tahay maad aragtay qofkii dhibaateeyey lala hadli karo haddii xafiiskaa la helo xafiiskaas marka imika ahaan ma jiro tee ma jiro walaal sexual harassmentka lowga ba 2018 baa lagu soo biiriyey xeerka marka intaad xafiis la sameeyay waan ognahay waqti inay qaadato wax kastaba wadankan so imika dawlad lagama sugayo haddaan mar xeerkiiba la soo saaray waa in anagu is urursan anigu laba xal baan arkayaa dhibaatooyinkan saameynaya dumarka laba xal baan ka arkayaa xalka ugu horeeya waa dumar inay dumarku xalka keenaan may afka arabka ina la hadlo hadal wixii dhaca wixii maqlaan wax kastaba ina laga hadlo hay ma hayna wax kastaba ceeb laga dhigo ina la yiraahdo reer aabay walaalkay waxaas ma jiraan wixii laga aamuso dhan qurun baa ku jira mar kasta waa ina farta la saaro boogta iyo xanuunka taas waa mid waa inay dumarku ka hadlaan waa idin seeban ku dareemi maanta haddaan ogeynba dhibta ku haysata oo adiga qarsanaysid taas waa mid talabaad ragga isma jiraan maanta ayaa laga cabanaya ayaa waxan oo dhan keenaya waa qayb ahaan eeg maanta dee ma qayb iyo wax kama hadlayno waatanaan fadhinay dumarkaan u hadlayno ma qayb baanu sheeganaynaa dumar guud ahaan baan ka hadlaynaa rag guud ahaanna waan ka hadlaynaa qayb iyo waxaas lagama hadlayo hadda maqanina mar kastoo laga hadlo waxaas waxa weeye inay raggu hadalka soo galaan waayo dee adduun laguma noolo keligii inaan ku noolnahay waa run markan ay leedahay waa inaa la sameeyaa xafiis dumar inay joogaan waa dhinaca securityga safety meel comfort aan ku ahayo markaan yimaado aan is odhanayn waa lagu judge garaynaya waa lagu eegayaa amba wuxuu ka oran yes but maye laakiinta waa inaan iska reebnaa so that's why loo baahan yahay xafiiska inaa la sameeyo laakiin raggu
waa inay soo galaan dagaalka ay madasha hadalka yimaadaan anuu xalay ugu dambeysayna asxaabanahay baan la hadlayay markaasaan sheekooyinkan ka hadlaynay wuxuu yiri waa run u qirtay waxaan inay wada jiraan fiidiyoyadii aanu sameynay baan tusnay Buti TV aan way jiraan markaasaan leenahay haydi way jiraan idinku haddaad nisoo ag joogsan weydiin oo walaalkiina khaldama adna qaban weydiin aad la hadli weydiin xagee xal laga helaya ha 50% boqolkiiba konton dadkii naga dagaaltami lahaa way ka maqan yihiin dagaalka dee keligeen ma noolin anigu keligeen meeshan ma socono dee waa loo baahan yahay soo labadaa xal waa dumar oo hadla iyo raggoo soo gala dagaalka simple kamal khair run ahaantii fahime iyo maan way soo koobeen hadalka laakiin anna waxaan ku darsan lahaa mid waxa weeye haddar waxaa lahayd maxaa sababa in haweenka uu farta lagu godo ragga laga sheekin waayo waxa weeye waa wax jiro waan kuugu mahadinayaa inaad na weydiiso nagu soo macsuunto barnaamijkaaga waran laakiin waxa weeyaan mahado maani anagu in badan baan ka sheekaysanay fahiman in badan baan ka sheekaysanay iminkan waxaan doonaynaa barnaamijyo qaar inaan ka sameeyno haweenka u sameeyno insha Allah wayna soo socdaan laakiin haddii aan ku soo noqdo hadalkayga waxa weeye gabadha marka la korinaysa loo koriyaa su'aashu waa taa mushkiladda ugu weyn ee na qabsatay rajab to kaliya ma haween Afrika kaliya ma dadka muslimka kaliya ma haween oo dhan meesha ay ku nool yihiin gabadha waxa loo koriyaa jirkaagu waa cad ragga ilaahay u sameeyay uu ninku ku intifaacsanayo ama galmaha kuugu yimaado ama ha ku jeejiro ama ha ku kufsado haduu doono ama ha iska ka taabsado run ahaantii maanta hadii mikrofon la dhex qaato magaalada la dhex maro boqolkiiba malaha 10 ayaa la helay gabadh reer Djibouti oo markii ay yareed la soo taataabay runta markaan sheego xalintan ku gelin horto ii faham waxa way khadaro marka aan yarnahayba jirkaagu waa wax waa timir bacataal wixii looran jiray waa qof dariiq iska joogo qofkii doonaba iska yar taataabanayo waxaan xasuusanayaa waagii naasu noo soo baxayeen cid ka saana taaban jirtay wallahi been maaha fiima wad xasuusataa ha naasiba soo baxay waan la taabanay macnaha waxa weeyaan marka aad yar tahay hadii laga dhaadhiciyo waxa tahay qaniimo meel taala oo in la ugaarsado ku haboon hadii lagu koriyo marka aad yar tahay markaad weynaatana lagu koriyo gabadha hadarkeegu inay qofku inay gabadha hadii wixii la doono lagu sameeyo inay ka hadasho ma waayo maxay uga hadleen hooyadeed baa cambaaraysmas walaalkeed baa dibadda maxaan lagu koriyay man haddaad wax sheegtid inankiinu sideebu u dhaxmaray dariiqa aabaha isagu miskiidka u tagi hooyadaa seebay geelooyinkeedu ugu tagi deseed ku doon markaa gabdho inay uga waramaan kama warami karaan waayo waxa weyn prédisposition wala la faransiiska prédisposition ba qofka gabadha ruuxa gabadhii prédisposition uu male in ay mushkiladaha ku dhaca nafteeda ay ka hadasho taas waa tacliintii aqalka lagu dhex bareeyeen ta labaad ee kale waxa weeyaan dadka Soomaalida anu anfarta kama hadlay dadka Soomaalida dhibaato weyn baa haysata waxa weeyaan raganimada Soomaalida maxaa lagu fasiraa ninka ragii Soomaalinimo marka la eegmaanay waa maxay waa ninka naagta wuxuu doona ku sameeyay run marka la sheego Soomaalida raganimadeedu waxa ku jira cunfi violence baa ku jira dagaal baa ku jira waxa ku jira waxa lagu leeyahay ninkaasi waa haliyayo uu firfircooni kalmada hadda ka tira kaama dambeeyay adigoo soo koobay أنا سوق كوبي وإحنا سوق كوبي كره ما واحد جعلنا لنا وقت بين سوق قبني ما واحد تري هذا رتولي ولا بشي بيتر حبلها أو هذا الكوج اللي دقيسو يا جماعة أودينا ويا شاني هذا كهالي كران وقفك وحي بوقتي ماشي تالي ومو دول لقي كرور هذا وحاسة يقول دعي كو يرجعون نصور عن سما لبضع عقبة وين هرتها لأنا جودن كين وحوين دينته وين دين مركان ليه dadku badiga waxay oranayaan diinta ka baxday diin ka baxma waxa weyn diintu waa laba midna waa mid Ilaahay ku soo dajiyay oo buugi ku qoran midna waa taan ku dhaqamay dadku tii ay ka fahmeen intaay moogtay marka aan markaan diin leh nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo qudwadii islaamku inay ku daba deedaan oo wixii ninkeena raaca leeyahay wuxuu ka tagay niirina ka tagay taas la isku haysto waxa la isku haystaa diinta keenaysa gabadhu marka ay yar tahay oo raggu ay doonayaan inay kugu xadiisaan 10 jir hadaa tood baalaqdan inuu ku guursan kara way reer baad dhiqi kartaa inay yaro 10 jir maxay dhiqi kartaa sax anu waxaan u arkaa ninka guursada inay yaro 16 jir ka yar inuu pedophile yahay markaas maxaa oranaysaa waxaan oran lahaa waxa weeye haweenimada in dib loo macneeyo sax bulshadu intay wada fariisato haween rag duqay dad yar inta la wada fariisto la raado haween maxaan u naqaanaa waayo anagu un hadii naagaha imka feministiga la raado gabdhaha iyaga oo kale maanta ay fahansan inay haweenku xuquuq leeyihiin
waxyaabaha qaar inay ka hadlaan naftooda inay ka sheekeeyaan hadday doonaan waxyaabo dadku ay u arkaan inay ceeb yihiin ay ka sheekeyn karaan baraha bulshada lagaga sheekeyn karo taasi waxaa asmaxaysa uun haddii bulshadu inta ay waayo waxaan waa mushkilad haweenka saaran ma waa mushkilad bulsho mushkilad bulshana waxaa xal loo helayaa si bulsho marka loo xaliyo in la wada fadhiisto aabaha in laga yiraahdo gabadhaada markaad korinaysid ha ku korin sida waqtiga nagu soo cararaya waan jeclaan lahaa inaan kuu sii daayo hadalkaaga haddana waqtiga nagu soo xidhay ina soo eryanaya raaliya adna walaal 2 iyo 3 haddaad odhan lahayd wax أنا والله أنت قبليه ندقيستي وحبان إنه يقص بيري وحيقص بيري هرت الدين تمرك لقى هذا دين تم دينتي وحبيبك كان رسولك صلى الله عليه وسلم بس الدين تا يرجعوا دين عقول ريحين وحن ما أنت دعية موح بريجي زمن كي دعية أرت تعواز توتر dumar ba may shaqeynayeen berigii sabi وشقينايين administrationadan iyo وشقينيين وحي كشقينيين example بانكو وتسي ان بريجي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كو دنتي دبدي خليفه عمر بن الخطاب مش ugu weyn hada diiman ka hadlaya mesh ugu weyn dakhligu ka soo gala waxay hayd maskarada amba meesha suuq wax lagu ganacsiga sida fawziyo kale gabadh buu uga dhigay aspectrice Umar gabadh buu aaminay uu suuqa eeg waxa lagu iibinay inuu wax tayo leeyihiin inta lagu iibinayo marka dumar ma joogina oran dumarku afada intay fadhiyaan bariis mi karinin no dumarku waxayeen inay dagaalka ay rag riixaan inay rag imaka problemadan mid ama temaatikadan imaka jooga berigaas may jiraan runta hadda de temaatiga waxay ku xiran tahay zaman walba aan ka dhaxgalo kelmad khadaro wax baan doonaa ku fahansiiyaan doonaa wax kaliyaata marka leedahay mushkiladaha jira maanta may jirin oo ben mushkiladaha maanta jira oo dhan waa waxa la yiraahdo sociologique la normalité sociologique waxa maanta jira oo dhan kubsi dad ka hadashay waagi uu jiray nin ku kaaftay dad ka hadashay waagi uu jiray laakiin waxa weeyaan xilli walba dadkii baa isbedelay taariikhdu waa sida waa cyclic waa grand durés dadku baa isbedelay laakiin sida in maxay hadanay looga hortagayo dhibaatooyinka baa isbedelaysa waayo dadkii baa isbedelay laakiin waxa maanta jira oo dhan way jireen gabadh la damca way jirtay marka fahima doonaya inay ka jawaabto tu as raison way jireen laakiin anigu sida ay xalku waxa weeyaan say sheegtay man oo gabadh walaashi xoog aan u jecelahay dhibaatadu dumarun kaligood xalku ma noqonayo waa inuu rag in soo garab joogso madasha waa inuu rag soo fadhiistaa dumarka u hadlayaana waa inay noqdaan dumar iyagu wax kasta ka hadli kara oo in waxba soo qaban karin waxaan aaminsanahay midna waan ku biirin lahaa maanta li rag baa laga hadlayay hablo inaga dhexdeen waa inaynu iscaawino waa inaynu is-ipolino waa inaan maaragtay isdhiirino waa in haddaynu aragno maanta haddaad sheefo tahay hablaha kaa hooseeya waa inaad soo dhaweysatid waa inaad maaragtay aad nidhaahno dumar baynu nahay juhdi ta sare ilaa ta hoose dhibaatadeenu akala duwanaato laakiin dhibaatadeenu akala duwanaato amba akala waaweynaato laakiin haddana dhib quraataan haysata inagu dumar adayga raaliya intaasaan kusoo xidhanaa waad mahadsan tihiin sidaad uga jawaabteen baaqi aan nii soo jeedinay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin tan iyo kulan dambe isma seegno isma dhaafno iyo waranno